marka hore aad u mahadsantihiin marka xigta waxaan jeclaan lahaa ugu horreyn inaan u mahadceliyo shacabka degmooyinka Ilwa iyo Hodan iyo weliba ciidamada booliska ee ka howlgala saldhigyada degmooyinka Ilwa iyo Hodan oo iyagu suurageliyay inay markaas gacanta ku soo dhigaan ruuxii iyadu ka xaday isbitaalkii soos cunug yar oo hooyadiisa ay markaa umashay oo ay markaa la tagtay xaafad ka tirsan degmada Hodan ciidamadana ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan cunugaasna ay soo badbaadiyaan haddana cunugaasi hooyadiisa ay haysato dadkii iyagu falkaasi ka dambeeyana ilaamaha ammaanka gacanta ku hayaan isla markaana su'aalo la weydiinayo marka afyeen see ku suurta gashay in dadkaas la soo qabto oo hadda baaris ku socdo runtii waxay ku suura gashay markii hore cunugan waxaa laga xaday sida la socotaan isbitaalka soos ee degmada Ilwa iyadoo la kaashanaya shacabka degmadaasi ayaa waxaa suura gashay in markaa farta lagu fiiqo in qofkii falkaasi ka dambeeyay markii ugu dambeeyay oo sii galayay qaybo kamid ah degmada Hodan xaafad kamid ah sida darteeda ayaa haddana waxaa la sameeyay xuuraansi ku aadan goobtii uu ku dambeeyay qofkaasi iyadoo la kaashanaya shacabka degmada Hodan markaana waxaa suura gashay wada shaqeyn dhaxmartay shacabka iyo ilaamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan gaar ahaan ciidamada booliska in xogta la helo isla markaana goobtii loogu tago qofkii falkaasi geystay lana soo qabto taa ayaana markaa suura gelisay xogtaasi iyo wada shaqeyntii shacabka iyo ilaamaha ammaanka dhaxmaray marka tirahaan hadda dadka falkan loo soo qabtay intee gaarayaan afyeen inta hadda la soo qabtay waa qofkii falkaasi ka dambeeyay iyo dad kaloo la socday marka laamiha ammaanka ayaana gacanta ku haya iyaga ayaana su'aalo weydiinaya markay su'aalahaasi ka dhameystaan oo xog dhameystiranna ay ka helaan waana idinla wadaagi doonaa insha Allah marka halkee meesha laga soo qabtay markii hore oo ay cunugani ku qarinayeen waxay ahayd dhinaca dambe xaafada loo yaqaan bishacaas dhinacaas iyo degmada Hodan qaybtaas ayaa laga soo qabtay marka hadii la baaray su'aalo la weydiiyay ma la weydiiyay waxyaabaha ku qasbay in haweeneydaas cunuga yarka ka xad isbitaalka su'aalaha way socdaan ilaamaha dambi baarista ayaa su'aalaha weydiinayo markii su'aalahaas laga dhameysto xogta la helana waa idinla wadaagi doonaa marka ma ciidanka booliska u sababaha in cunuga la xaday hadda la helo mise waxa jiray caawinaad aad ka heshan dadkii eheladii iyo shacabka oo suurtageliyay shacabka degan degmooyinka Ilwa iyo Hodan iyo ciidamada booliska oo iskaashanaya ayaa gacan ka geystay soo qabashada waxaana mahad gaar ah u celinaynaa shacabka degan degmooyinkaasi iyo taliyaasha saldhigyada degmooyinka Ilwa iyo Hodan oo iyagu qayb libaax leh ka qaatay in markaa dabagalkan la sameeyo xuuraansi badan la sameeyo dadkan la soo qabto marka waad ii sheegteen baaris uu socdo su'aalo laga weydiinayo hadii ay soo dhiman see laga yeeli doono dadkan oo hadda falkan lagu soo qabtay taa waxaa go'aamin doonaan hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka iyo ilaamaha ammaanka go'aamin doonaan marka waa wax ugub ka ah caasimada oo aan hore looga arag marka ka maamul ahaan idinku maxaa dareemaysaa maadaama afyeenka gobolkan tahay runtii sidaa u sheegtaba falal oo hore u dhici jira maaha waa fal ku cusub magaalada runtiina waa wax laga naxo in cunug yar oo markaa dhashay oo umul ah in qof bini'aadan ah oo damiir ku jiro oo markaa xado taasna waa wax laga xumaado laga naxo runtii waana talaabooyin hadda kadib lagu sii fikiri doono markaa in arrimahan oo kale ay soo noqonin waana dadaalkana waa la xoojin doonaa insha Allah waana la dadaali doonaa